السلام عليكم muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay saddex qodob saddexdaas qodob kala ah gabdhuhu maxay u ooyaan waqti walba waxaan ka wadaa saacad walba ma aha laakiin isbuuci gawr walba waxay ooysaa laba mar ama saddex mar maxaa sababi kara inay ooyso hadii ay ooyso dhacdo inay gabdhuhu ooyaan sidee loo raali geliyaa muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay xaaslayaalka wuxuu ku saabsan yahay wiilasha qorsheynaya gordhow inay guursadaan wuxuu ku saabsan yahay wiilasha guursan doono hadda daayirta oo wili guursan insha Allah mowduuca waxyaalo badan oo ka caawin doona waxa dhacday inan yar ama wiil yar inuu weydiiyay hadda ka hor hooyadiis kaliya wuxuu kala saari waayay sababta ay hooyadiis mar walba u ooyso ciyaalna ma ahan hooyadaay maxay u ooysaa ayuu isdhahay waxa dhacday hadda ka hor inuu inan yar weydiiyay hooyadiis sababta ay mar walba la ooyso mar walba iska ooynaysaa su'aashaas ayuu hooyadii weydiiyay hooyadii waxay ugu jawaabtay haa waayo waxaan ahay gabar bas wuxuu weydiiyay hooyo maxaa mar walba u ooysaa kadib waxay ugu jawaabtay haa waan ooyaa sababtoo ah waxaan ahay gabar inankii wuxuu ku jawaabay hooyo maanan fahmin intay habsiisay wiilkeedii ayay waxay ku dhahday haa wiligaana ma fahmi doontid hooyo kadib inankii yaraa ayaa aabihii weydiiyey su'aasha wuxuu dhahay aabbo hooyo maxay mar walba la ooydaa aabihii muxuu u jawaab mataqaanaa wiilkaygiioo isku murjinoo dhahay sababtoo ah gabdhahoo dhanba ayaa bilaa sabab ooya waqti dheer kadib wiilkii waa u weynaaday wuxuuna raadinayaa sababtu ay dumarku la ooyaan haa wuu weynaaday qof weynuu mas-uuloo noqday ilaa ay hadda laakiin ogow wuxuu ku weynaaday asigoo aanan fahmin sababka ay dumarku la ooyaan ugu dambayntii asigoo nin weyna ayuu waxa uu raadiyey inuu baxthi geliyo sababta ay dumarku la ooyaan waxa uu u tagay nin mas'uula wuxuuna weydiiyay su'aasha ah maxay dumarku mar walba la ooyaan ninkii mas'uulka ahaa ama ninkii aqoon-yahanka ahaa ayaa wiilkii wuxuu ugu jawaabay haa dumarku waa ay ooyaan waa sax sababtoo ah dumarku markuu ilaahay abuuray waxa uu siiyey garab adag oo xoog badan si ay culayska adduunka oo dhan ugu qaado iyo laba baalo jilicsan oo naxariis badan si ay kuwa kale ugu gudbiso deganaasho wuxuu kale ilaahay siiyey gabdhuhu ama dumarka awood kale oo gudaha ah si ay uga xamisho culayska ama xanuunka dhalmada caruurteeda iyo waliba awood ay ugu dul qaadato caruurta markii ay ka tagaan awood noocaas uu ilaahay siiyey meeqa hooyaa lagu caasiyey awood ay u leedahay hooyo markii lagu caasiyo haddana dib baa ugu soo laa awood ay kugu cafiso ama markii aad maqan tahay kugu sabartay ilaahay siiyey sidaa awgeeda aabba ma ku dul qaadan karo wuxuu kale uu ilaahay siiyey xoog iyo adeeg oo ay ku qaadi karto reerkeeda kuna daryeeli karto una adkaysan karto daruufaha ayadoo wax cabasho aanan jirin wuxuu kale uu ilaahay siiyey muxibo iyo galgacayl aanan dhamaanaynin haddana aanan isbedelayninba xitaa haddii ay ka tagaan haddana ku soo laabtaan taasi ay xanuun ku reebto haddii laga tago lagu soo laabto xanuun walba ay dareento xitaa muxibo iyo galgacayl wuxuu ilaahay siiyey aanan dhamaanaynin isna bedelaynin ugu dambayntii wuxuu siiyey ilaahay ilmada dumarku inta ugu badan way ilmeeyaan ilmada ilaahay ayaa ugu deeqay ayaga waa is afgaaraysiin walaashaada wax yaraa isdhay uraaidhig uraa canjeera waa liska oynoyaa xumaanka ma aha inta aan dhan hadda aan soo sheegaynay ugu dambayntii wuxuu ilaahay siiyey dumarka ilmada ugu dambayntii ilaahay wuxuu siiyey ilmada siday u qubto markay u baahato dabadeedna uu ugu dago culayska iyo mas-uuliyadda garbaheeda saaran isla markaana ay dareento nafis balaaran taasina waa barta keliya daciifnimadeeda sidaa darteedna barta ilmada dumarka oona ilaaliya haddii ay tahay xitaa bilaa sabab inay u oynayso wallaahi waa in la ilaaliyaa sababtoo ilmada ay mar walba quwayso ilaahay baa ugu deeqay waxayna leedahay awoodihii aan soo sheegnay oo dhan xuduntii lagaa jaray maalintii adduunka timid ha ku xasuusiso qof qiimo badan taasoo jirkeeda aad ka soo go'day adiga waa inaan u ducaynaa marka dumarkeena ama hablaheena hooyooyinkeena abaayaalkeena iyo xaasiskeenaba ilaahow waxaan kaa baryayaa inta jeer uu wadnahayga garaacmo inaad ka dhigtid inta hooyo ay jannada gasha hal asxaan ii samey keliya aamiinta ha iga ilaawin waxaan halkaa ugu soo baxnay steebkii koowaad oo ahaa dumarka iska ooynaayo okay sababtay ula ooyaan iyo meesha ka keeneen halkaasaa ugu soo baxnay insha Allah waxaan gudagalaynaa weeba dhacdayba inay dumarka ooyso maxaa sababa inay ooyso wax kale ma sababin without reason wax u dhacay horta ma jiro waxa kaliya sababay inay la ooyso waa caro ka xanaaq walaashaada de mar walba ka xanaajisa ama hooyada iska dhee mar walba ka xanaajisa sidee loo raali geliyaa gabdhaha waaw ninba hadda ka hor waxa uu yiri anigii xaaskayga ayaa isku dhacnay khilaaf aad iyo aad u weyn problema dhexdeena ka dhashtay kadibna way iga carootay taas waxayba ka daranba inay carooto xitaa waxay joojisayba dhowr maalmood oo dhan waxayba hakisayba inay ila hadasho xanuun waa qof isla joogtiin haddana qoftaada ama inay kula hadli weyso wallahi kaliya inay shaqadeeda guriga qabsato cunto ay ii diyaariso mooyee hadal kale ma balahanba kadib wuxuu dhahay waxaan u tagay nin weyn oo caalim ah kadibna waxaan u sheegay wax walba oo kalifa inay iga xanaaqdo ida wax walba aan u sameeyay markay iga carootay kadib si aan ula heshiiyo darteeda wax walba u sameeyay kadib markii aan isku dayay inaan dhowr jeer si deganaana oo la hadlo markii aan la hadlo hadal walba aan ku dhaho way iga aamustaa
jawaab dhan ma isiiso marka wuxuu dhahay maxaa ila gudboonoon sameeyaa ninkii caalimka ayuu su-aasha weydiiyey caalimka nin aad iyo aad u aqli badan ayuu ahaa sheekadan intaan maqlin ka hor wallaahi ani waa ku fikiri jir weligayba laakiin caalimka muxuu ugu jawaab mataqaanaa wuxuu dhahay markii aad u tagtidba adigoon wax hadal ah dhihin u dhawaaw kadibna habsii markii habsiisa kadib waxba hadal ha dhihin wuxuu dhahay keliya u tag u dhawaaw habsii ninkii ayaa dhahay waa la yaabayba ninkii caalimka wuxuu ii sheegay sababtoo ah weligay dhibaato macnaha xalkaas umaan raadinin dhibaato sidaan u weyn xalka habsii bes hadalka waa la yaabayuu dhahay ninkii kadib ninkii waa uu soo baxay wuxuu dhahay waxaan u galay xaaskaygii oo cuntadii diyaarinaysa ayaan guriga ugu soo galay si toosa waxaan ugu dhawaaday oo dhahay dhankii ayada ay iga xigtay meel fiicanaan muruya ma sheegada muuqaalka bis like no si channel subscribe no sar wax kale ma gaaro wuxuu dhahay si lama filaan ah ayay u bilowday inay ilmadii ka soo boodaba hal mar way ilmaysay kadibna waxay bilowday inay qalbigeeda ii furto ay sheekooyin ii bilowdo khilaafkii sida weynaa dhan muxuu ku xalismay ma taqaanaa kaliya inuu habsiiyey qoftiisi bes gurigu soo galay waa uu u dhawaaday hadallo iidaa bilowday kadibna way oysay ilmadiyaa ka soo booday hal mar bis ayuu laabta gashtay khilaafkii labadooda dhexdooda ka taagnaa kaliya hal mar uu habsiiyey ayuu dhahay ayuu khilaafkii ku xalsamay waxa la yaab kale ma taqaanaa qalbigaaga haddaa hal tilaabo u dhawaysid kun tilaabo qalbigeeda ayay kuu soo dhawaynaysaa waxaa halkaa ugu soo baxnay steebkii labaad oo sida lagu raaligeliya ah kaliya solfedka ama xalka waxa waaye aad ku xalin laheyd hala hadlin problem iyo buuq kale ha ku furin waa laga yaabaa in iska koloshahay try tijaabi mar labaad mar saddexaad kaliya hableysii bis okay steebka labaad meesha ugu soo baxnay gudagalaynaa marka steebka saddexaad horta maxaa kalifi kara dumarka inay ooyaan waxa kalifi kara wax kale ma ahan waa problemkaasoo ah inuu dhanka ninka ka jiro hadda la ka sheekeen isla markii hooyaday soo wacday ooy macaan saatay oo fiican alxamdulillah saayita alxamdulillah abartay ina abiyay hajra leedahay la sheegay shalay dham kula hadlinay shalay ismoogana umaleeya isla markii dacwada soo gudbiyay maamada ma inacdaan marka dacwadeeda xaq waay mo waran baxaalkiin caafimaadkii oo macaan ku fiicana walaal alxamdulillah dhankiina fiicantiin mooho seedaa baay beel alxamdulillah inta ugu badan waxaan u nisbaynaynaa markii aan ka hadlayno horta maxaa sababi kara inay dumarku ooyaan waxa sababi kara wax kale ma ahan waa dilka inta ugu badan dumarka loo geysto waxaan u hibaynaynaa ama aan u nisbaynaynaa dumarka dilka loo geysta ayay la ooyaan ama caqabadaha ama adi problemada dhanka ninka ka soo wajaha ayay la ooyaan ama walaalkood ninkooda wuxuu rabaa uu ahaado waxaa dhacday nin inaag isqabo inuu ninka ka sheekeeyey ninkii ayaa waxa uu dhahay maalin ayaan dharbaaxay xaaskayga waxayna ahayd maalintii ugu horeysay uu gacan u qaaday tan iyo markii ay isguursadeen kaliya wuu dharbaaxay kadibna wuxuu dhahay maalmo kadib adiga dharbaaxda waan ka heshiinay laakiin sidii hore maysan ii ahayn waxyaalo badan ayay iska bedeshay dhankeeda sidii aniga ahayd macnaha wax badan ayay iska bedeshay ayuu dhahay waxa ay joojisay inay igaga hadasho waxyaabihii ayada ku dhacay ama adiga iska dheh waxyaabihii nolosheeda quseeyey ama muhiimka u ahaa ama problemyada qabsada inay igaga hadasho ayay joojisay ayuu dhahay run ahaantii wuxuu dhahay waxaan garawsaday ama aan aqoonsaday in dharbaaxadii aan maalintii u geystay ay iga dhigtay bahal gabadhaan dabacsan agteeda waxaan ka qaaday dareenkii xasiloonida waxay bilowday inay iga baaqato macnaha waxay bilowday inaysan ii hadlin waxba ii sheegin riyaalihii ay ka warwaraysa ama niyadeeda ku jireen inaysan iga hadlin ayay bilowday macnaha iguma nafisto waxyaalaha nolosheeda adiga si uun waxbaba iima sheegtaba waxay bilowday la fadhiisigayga inay ka doorbida inay keli ahaato waxaan kaloon waayey waxyaalo badan maleynta aan maleynahay keliya inaan u geystay dharbaaxo wax weyna ma ahayn maleynteeda sidaasay ahayd keliya waxaan u geystay dharbaaxo gabadhaani waxay kaaga timid qoyskeeda iyo qof walbaba dee agtiisay kaaga timid si ay dhankaaga ugu dareynta xasilooni ee ma ahan inaad noqotid keydka sideeda raggow dumarka u naxariista wafaqa bilqawaariiri ayuha rijaal qisadana aaday noo taabanaysaa keliya wuxuu dhahay hal dharbaaxaan u geystay ayay maantoo dhan waxay ka doorbida xitaa inay ila fariisato inay kaligeed ahaato inaysan waxba ii sheegin laakiin nin garawsi leh ama wax fahan leh ayuu ahaa wuxuu fahmay in dharbaaxadaas keliya uu u geystay ay dhankeeda macnaha marka loo fiirsho ay bahal uu ka noqday waaw marka soo insha Allah mawduuc muhiim ah halka uga hadlaynay dumarka loo naxariisto waxa ka soo hadalna sida loo raali geliyo in loo naxariisto sida wixii oo hinteeda keena wixii keena wax walba ka soo hadalna soo insha Allah mawduuca maanta halkaas uu ku agyahay loo naxariisto dumar maanta dhan wadayna loo naxariisto le ma dhiheena maya ficilkii ha laga dhabeeyo marka insha Allah anagu wali maana guursan laakiin dadka xasiliyalka idin dhacad maanta waa nasiib badan tihiin waxa haysataa bal naxariista kugu dhex jirto qof u soo bandhigtid waaw anaga ma haysano maanta soo insha Allah mawduuca maanta halkaas ku keenayna ta ka kulmin waqalka muqalka xadanaysa in video insha Allah bukalaat awliya oo keenay mana abahooda waqafa bil qawaaniin ayuha rijaal dumarka ha loo naxariisto